dhismaha xarunta maktabadda qaranku waa mid aan kala joogsan tan iyo markii lagu bilaabay ololaha isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarumaha danta guud ee dalka iyadoo ay shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya maalin kasta ka qabtaan shaqo wadaniyad leh mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya ayaa markii lixaad si weyn uga soo qayb galay dhismaha ka soconaya maktabadda qaranka oo ah xarunta cilmiga xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Xasan Asaari ayaa sheegay in guul laga gaadhay barnaamijka isxilqaan isagoo geesta kalena rajeeyay in dhowaan la soo afmeeri doono saddexda dhisme kaabiga ee lagu dhisayo isxilqaan dalkaaga ku dhiso runtii looma kala haro maalin walba cid walba kaltankeeda ay timaadaa maanta waxay aad kaltankeeni aadaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano kaltankeeni toddobaad oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku timaado waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan intuusan dhamaanin saddexda meelood ee kala ah tiyaatarka qaranka iyo maktabada iyo madxafka inay dhamaystirmi doonaan runtiina hawlihii qaranka loogu talagalay inuu qaban doono shaqada kadibna waxa wasaaradda arrimaha gudaha si weyn ugu mahad celiyay kuna bogaadiyay shaqadan ay ka qabteen xarunta maktabadda qaranka agaasimaha maktabadda qaranka Maxamed Axmed Shiil runtii shaqo aad iyo aad u wanaagsan ayay aad u qabteen oo maktabadda maanta ay ka shaqaynayeen waxay ku tusaysaa dadaalka iyo mataqaana hawlkarnimada iyo waxtarnimada wasaaraddu ay u leedahay mataqaanaad ee dalka ayuu ka tarjumayay shaqo aad iyo aad u wanaagsan qabteen Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.